mid ka mid ah isimada dhaqanka Puntland waxa uu baaq nabadeed u diray beelo walaalo ah oo diriri ku dhaxmartay dhawaan deegaanka Dhuumaye koonfurta gobolka Sool waxa uu isimada jooga iyo sidoo kale kuwa imaan doonaba ugu baaqay inay si xoog leh ama isxilqaan buuxa iska saaraan arintan beerahan oo in badan soo noqnoqotay Nimca Xasan Bakaal ayaa la kulantay isinka isla markaana ka wareysatay arrimaha baaqa iyo waxyaabaha kale ee u jeedinaya dadka diritu ay dhaxmartay Suldaan Maxamuud Jaamac oo kamid ah isimada dhaqanka Puntland oo wareysi gaar ah siiyay TV-ga SBS xilli uu safar nabadeyn ugu socday deegaanka Dhuumaye gobolka Sool oo ay dhawaan halkaasi dirir ku dhaxmartay laba beelood oo walaalo ah Suldaanka ayaa ugu horeyn baaq nabadeyn u diray labada beelood wuxuuna alla uga bariyay in dagaalka ka dhaxeeya labadaasi beelood kala qaboojiyo Suldaanka ayaa sidoo kale xusay inay halkaasi ku tagayaan nabadeyn wuxuuna ugu baaqay labada beelood in la tixgeliyo dhammaan isimada halkaasi u tagaya sidii xal looga gaari lahaa colaadda soo noqnoqotay bismillaahir rahmaanir rahiim ugu horeyn Ilaahay subhanahu wa ta'ala ma hadleh dad islaamina ka dhigay بعد الله إنه وحنا مهد علنيا تيفيق SBS كارهان قودنا وهو هاي نمع حسن إيو ولالك محمد محمد أبو مهد علنيا سفر كيجو الجديد سوحي تهاي وحنا كوجهن هاي دجان قبل كسول دجان كدومي ودوان دي بيخد عضي ولا بلو بحر السماء قيادة كدرين اسمه فربضان ودبوت اللي أنا إيو ismaamulka Soomaaliya galbeedka yimina way joogaaneen anana insha Allah ta'ala wixii naga aadan baanu dowrkayga insha Allah ka geysanaynaa hadda waxaan marayaa qardho aad baan TV-ga ugu mahad celinayaa wareysiga weeyashay sudweynta uu sameeyay insha Allah ta'ala waxaan ka bariyeynaa inuu Ilaahay nagu soo guuleeyo walaalahayna waxaan ugu baaqayaa qayaad iyo bahar same inay nabad qaataan ummadda walaalahooda u timin ay qiimeeyaan waxa laga kala yimi shanta gobol oo Soomaaliya Itoobiya waa laga yimi Boosaaso laga yimi Garowe ismadii ka tageen Galkacyo ka tageen Sanaag bay ka imaanayaan marka waxa la rabaa dadka inay qiimeeyaan oo nabad qaataan maantana wax nabad ka wanaagsan ma jidho walaad wilba ku dhintay wilkuma dhasho marka insha Allah ta'ala isimadana waxaan iyagana aan ugu mahad celinayaa kuwa hadda jooga iyo kuwa hadda sii socdaba iyo kuwa ku hawlanba arintaas aan ugu mahad celinayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa la Ilaahay mataqaan ajr hayna ka siiyo dadka Sool deegaana waxaan ugu baaqayaa gobolka gaar ahaan Dhumay gaar ahaan beesha dhibto dhexmadayna dadka inay soo dhaweeyaan nabadana ay qaataan una fududeeyaan mataqaan barnaamijka hawsha nabadda loo soo insha Allah ta'ala hada Dhuumaye ku socdaa safarkii Dhuumaye ku jahan yahay saaga waxaan ka soo kicitamay armo insha Allah ta'ala Dhuumaye u soo ilaahdiis hada ismadii inta u badan way joogaaneen inta maqan insha Allah ta'ala way marayaan ilaahdiis siyaalka ay nabadeynta iyo barnaamijka uga qayb qaataan insha Allah ta'ala dagaalkan ka socda deegaanka Dhuumaye gobolka Sool ayaa waxa soo taraya baaqyada nabadeynta ah ee loo jeedinayo waxaana lagu wadaa in dhawaan halkaasi ay gaaraan isma badan oo ka baxaya deegaanada Soomaalidu degto si ay beelaha walaalaha ah colaadda uga damiyaan halkaasina ay ku gaaraan nabad waarta Nimca Xasan Bakaal wararka SBS magaalada Qardho